waxaan dadka laga buuxiyey oo Ethiopia saana iyo waxaan iyo waa ruwaayado siyaasi ah oo aanan ku salaysnayn cilmi marka laga hadlayo siyaasadda marna dhaqaalaha waa laga hadlayaa marna gobonnimada iyo waxa laga hadlayaa siyaadada dalka marna waxa laga hadlayaa xiriirka ganacsi iyo kandadeed adduunku maanta wuxuu raadinayaa sidoo isugu furmi lahaa marka dalka Soomaaliya xuduudiisu way cayiman tahay oo dhulka Soomaaliya dad siin meeno laakiin dadka Afrika iyo deegaanada kale adduunka inaan wax la qabsanaa la rabnaa la ganacsano oo dhaqaalana dhex maro taas ninka diidan isaga dantiisa og siyaasadda aan kaga soo horjeedno way arrinta ku saabsan dekada badan ma u baahannahay waa dood imaan karta maxaa yeelay marka la yiraahdo dadkeenu waa 4 milyan deegaankeenu waa kooban yahay hal dekad ma nagu filan tahay aniga waxaan qabaa dood jirta oo laga hadli karo inaan ka wada iska qancino u baahan waa nabadoon imaam ku dhaliili maayo laakiin waa la doodaya markii inaan saxana waa isku dayayaan wax waa khaldami karaan dareenka ah inaan hal dekad kaliya loo baahan yahay dad badan qabay intaan la bilaabin laba aragtiyooda jirtay aragti waxay oran jirtay laba dekadood Puntland ma qaadi kartay hal dekad aan haysano dad kalena waxay dhigi jireen war dekad dad ma dhisan karo dawladda iyo mucaawinada lagu dhisaaye waalidahana laga daayo labadaas aragtiyood baa horta xoog u jiray laakiin anigu waxaan aaminsanaa markii aan imid waliba waa kaftameynaaye markaan doorashada galay reer mudug xogaa bay gooskayga dadbay waxaan dhahay waa reer bariyo dekadu ku istaagaya bal yiraahdo yimaado laakiin aniga ganacsadaan ahaayo dadka aaminsan baan ahaa inay Puntland laba dekadood u baahan tahay iyo ka badanba maxaa yeelay marketkeenu ma aha deegaankeena kaliya dekada Boosaaso hadda jirta marketkeedu dhinaca dhulkana waa ilaa iyo beledweyne dhinaca kana intuu ka tago waa iyadoo wali garaac sameysano intuu Ethiopia galo buu goday tagaa markaas wuxuu tagaa nageyle mid kale maxaa leedahay horta xuduudda ku taala doolo ma mid kale jirta mooyaale tagaa ani waxaan shaahid u ahaa badeecad Boosaaso ka soo degtay oo intay Kenya ka gudubtay Mozambique tagtay marka horta dhulka annaga aan rabno inaan target garayno ma aha deegaankeenan iyo tirada dadkiisa waxaan rabnaa inaan target garayno wax kale markaan iska dayno 120 milyan oo darafka nagu hayo oo aan wax ka deganna dadka halka jooga ayaantii dhawada doorashada oo is dhaqaanaaye soo Ethiopia dadka miidan keenin dadka qaybtiisa kuwa xagga ku jira yaa maxay hada degmadii halkaas ahayd Allah hadeen xuduud baan leenahay gal xamur iyo booq iyo mirafal iyo maaneen xagga ku yeelan horta xaggaas oo maaha gedamada galaadi weey marka buuhoodle xuduudu xagga dhex martaas kayse magaalada gudaheeda Soomaa horta dalkeena xag u qayb naga jirtaa waxaan u weel tolaleena waxa weeye dalkeena iyo dadkeena waxaan dadka laga buuxiyey oo Ethiopia saana iyo waxaan iyo waa ruwaayado siyaasi ah oo aanan ku salaysnayn cilmi marka laga hadlayo siyaasadda marna dhaqaalaha waa laga hadlayaa marna gobonnimada iyo waxa laga hadlayaa siyaadada dalka marna waxa laga hadlayaa xiriirka ganacsi iyo kandadeed adduunku maanta wuxuu raadinayaa sidoo isugu furmi lahaa marka dalka Soomaaliya xuduudiisu way cayiman tahay oo dhulka Soomaaliya dad siin meeno laakiin dadka Afrika iyo deegaanada kale adduunka inaan wax la qabsanaa la rabnaa la ganacsano oo dhaqaalana dhex maro taas ninka diidan isaga dantiisa og siyaasadda aan kaga soo horjeedno way arrinta ku saabsan oo aan malaynayo iimaan inuu ka yimid warkiisa war siyaasi buu ahaa idinku waxaad moodaan inuu garaac diidan yahay laakiin warkiisa 2 meel aan ka dhaxlay Ethiopia waa diidanaa Imaaraadkana waa diidanaa aragti siyaasi ahayd dad qabaa jira laakiin waxa inii sheegayaa dadkaas qaba dana kale ka leeyihiin
bini aadanka hadda waxa way adduunka waa isku furmay social media sameysmay dad badan oo social media waxa ka soo baxay muxaadaraad ka jeediyay Soomaaliya siyaasadeed doodaha dhaca bini aadankuna sidiisa dadkan hadda mararka qaarkood fidnada ku dhacayo oo diinta ka baxay dad baa qanciya Soomaaliya horta mararka qaarkood hadalku waa sixir baa leeyahay waa lagu sixir karaa Soomaaliya sometimes ninka hadal badan waxa weeye inuu ku qanci wuxuu kugu qancin karaa wax baadil ah sometimes marka aaraa iyo afkaar jirta way aaraada iyo afkaarta jirta lama doodi karno haddaanan doodaha noocaan oo kala furin qofka in hadalka lagu caburiyo ani ma qabo nidaamka dimuqraadiga aan qaadan waxa la rabaa inuu hadlo oo lala doodo oo waxa jira loo sheego aan waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed deegaanka Ilaahay uu ku manaystay waxay leeyihiin 3,300 oo kiiloomitir oo xeeb ah Puntland waxay leedahay 1,650 xeeb ah dadkeena tiradiisu waa yar yahay deegaankeenana waa ballaaran dadka adduunka waxaan u baahannahay dhaqaalahooda waxaan u baahannahay aqoontooda waxaan u baahannahay aqligooda annagana waxaan rabnaa waxa dhulkeena ka soo baxa inay noo noqdaan customer aanu dhoofino waxa dekedeena ka soo dega iyo kheyraadka dhulkeena ka soo baxa horta horumar haddii aad maqlaysaan marka dawladda la dhiso waxa ku xiga horumar dhaqaale hadduu imaanin maanta dhan waa hadlayseen waxa u weel tolanaysaan waxa weeye nin shaqaystay cashuur uu bixiyey intuu dalkiisa ku qabsaday inta ka soo hartay uu mucaawanada u bixiyey wixii inaga soo gaari lahaa way wax harta ka hadlayseen maanta oo dhan laakiin kamidina hadal kheyraadka dalkiina ku jira sida ula soo bixi lahaydeen iyo sida ugu xisaabtami lahaydeen iyo sidaan kheyraadkaas annaga intaan ba hadda cid kala geyn aan u manaafacaadsan lahayn aragtida garacad waa aragti naadir ku ah Afrika heesihii la qaadi jiray maxay hooye Afrika hurudayso maaha dad iska hurdaan ahaan jiray Afrika dhawaato haysatay laakiin waxaan ku faraxsanahay Puntland inay noqotay degaankii ugu horeeyay baraarugo kacay ilaa waxay ku fakartay inay dekad dhisato aan dal kale u dhisin oo hay'adaha la dhaho deeqaha bay bixiyaan African Development Bank African iyo World Bank aysan maal gelineen inay dhaan horta annaga dhisanayno inay markay muujiyeen meel soo gaareen inay yiraahdaan yaa waxna la qabsanaya horta waa ogaada mashruucaas garacad meesha uu soo gaaray horta waa noocii ugu horeeyay ee Afrika ka dhaca haddii lagu guuleysto in shirkad noocaas oo shirkad dadweyne ah ay ku guuleysato inay shirkad caalami wax la yeelatana waa mashruuci ugu horeeyo noociisa oo ama Afrika ama Soomaaliya ka hirgeli doona ogaada taas maxaa yeelay dekada Boosaaso iyo Tanberbera iyo tan Muqdisho intaba horta shirkada ajnabiga maamula Soomaaliya laakiin shirkadahaas waxay wax la galeen dawladaha maxaa yeelay waa dekado dawladdu lahayd laakiin garacad waxa asaaskeeda iyo maamulkeeda dawladda Puntland ay siisay iyadoo gabiib ah shirkadda wadaagsan markaan DB World heshiiska la galay dawladda Puntland iyo DB World waa wada galay laakiin marka shirkaddan hadday hirgasho wada hadalkeedu uu socdo oo insha Allah aan rajeynaa inuu guul ku dhamaado wadaagsan iyo shirkad ajnabi ah ayaa wada gali doona waana nooc hor leh oo guul ah oo taariikhda Soomaaliya ku suntanaan doonta waan u baahannahay dadkeena waxa ay ka guuxay inaan kala hadalno maxaa yeelay waxaan u socono waa taas waxaan inii sheegayaa Puntland waxay leedahay khibrad iyo aqoon ku filan oo ay dalkeeda iyo dadkeeda ugu adeegto waxay leedahay aqoon-yahano waxay leedahay sharci yaqaano waxay leedahay dhaqaale yaqaano waxay leedahay nidaam dawli ah oo dhammaystiran waxay leedahay golayaal falanqeeya oo go'aan ka gaara 6 sano baan ku sii socdaa inta aniga aan dawladda Puntland madaxweynaheeda ahaa Puntland waxaan u soo dhicina maahan weli waxna lagama dhicin go'aan khaldan oo aan qaadanay ma jiro weliba qaarkood
waxaa lagu saaray cadaadis inaan go'aano khaldan qaadanno waxaa la isku dayay inaan go'aano khaldan qaadanno oo sida siyaasiyiinta lagu yaqaano la yiraahdo dantiina ku jirtay qaat waxaan ka doorbidnay inaan danta dadweynaha ilaalino inaan danta gaarka ah ee aragtida siyaasiga inaan meel u dogno